الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa. darsigeen wuxuu ka bilaabanaa aayadda 72 ee min suurati albaqara. qaala allahu tabaaraka wa tacaala: waid qataltum wadkuruu xusuusta reer bani israa'iilow id waqti xusuusta qataltum aad disheen nafsan naf aad disheen oo fadaara'tum aad isku riixriixdeen oo yacni aad isku tuurtuurteen fiiha fii qatlihaa nafsadaas dilkeeda aad isku tuurtuurteen. wallaahu ilaahay mukhrijun waa midkii soo bixinayo maa wixii kuntum aad ahaydeen taktumuuna inaad qarinaysaan. ilaahay subxaana wa tacaala aayaddan wuxuu nooga waramaa qisadii ninkii shalay aan ka soo sheekeenay oo adeerkiisa dilay islahaa maalkiisa oo dhan dhaxal markuu qaadayo cid islaamiyeed albaabkoodii uu ku tuuray. markuu waaga baryeyna intuu baroortay ayuu yiri yani dhiigii adeerkii aan rabaa haddii kale dagaalan ka xigaa. waatii nabi muuse ilaahay u waxyoodo oo yani la yiri in allaha ya'murukum an tadbaxuu baqaratan, ilaahay wuxuu idin amrayaa neef loa inaad gowracdaan. su-aalo badan kadibna ilahay wuxuu soo sheegay fadabaxuuha wamaa kaaduu yafcaluun, way gowraceen uu yiri, laakiin markaas ka hor may isan ku sigan inay yani arrinkaas sameeyaan. almuhim way gowraceen. marka sidaas waay. marka wuxuu leeyahy nimcadaasuu ilaahay idin galay idinkoo isku tuurtuuraayo oo balaaye qaar idinka mid a qarsanaayo ilaahay bannaankuu keenay, idinkoo dhiiggiina isku daadan rabo isku baabi'i rabtaan oo ilaahay subxaana wa tacaala idinkala qabtay oo ninkii yani wiilkii yani ninkii yani dhintayna qofkii dilay ilaahay uu sheegay. marka nicmadaas waa weyn xusuusta uu ilaahay leeyahay. faqulnaa waxaan yiri ilaahay idribuu ku dhufta hu qatiilka ninkii la dilay bibacdiha bibacdi laxmi albaqarati, neefkii lo-da ahaa hilibkeedii gobol ka mid ah ku dhufta. meesha waxaa u qadaran fadarabuuhu biha, fadarabuu way ku dhufteen hu qatiilkii ninkii la dilay biha gobolkii hilibkay ku dhufteen. fa axyaahu allahu, ilaahayna isla markii wuu soo nooleeyey. intaas usoo qadaro. kadaalika marka nooleyntaas ilaahay uu soo nooleeyey ninkaas la dilay oo kale oo yuxyi illaahu ilaahay u soo noolaynayaa almowtaa kuwa dhintayna kuwa dhintay oo hadda bacdiga diidayo gaalada ah aidaa mitnaa wa kunnaa turaaban wa cidaaman innaa lamabcuuthuun kuwa dhahayo oo ma markaan dhimano oo lafa iyo meyd yani cara iyo lafa markaan noqono ma markaasaa nala soo bixina kuwa dhahayana bal u sheego ha ogaadin iyagana adduunka sidii ninkaan loo dilay aan usoo noolaynay oo kale sidaas inaan usoo bixinayno kuwa dhinta aan usoo noolaynayno bal iyagana ha ogaadeen. waa marka gaaladay xujo ku tahay oo bacdiga diidaya qiyaamaha. ilahay wuxuu yiri wayuriikum wuxuu idin tusinayaa ilaahay aayaatihi calaamadihiisi calaamadaha awooddiis lagu garto ayuu idin tusinayaa. lacalakum tacqiluuna likay tacqiluun, si aad wax u garataan, ama lacalakum waxaad mudantihiin tacqiluuna inaad wax garataan oo caqli yeelataan. ilahay wuxuu yiri jala jalaaluh afatadmacuuna muslimiina ma waxaad rajaynaysaan oo aad damcaysaan, afatadmacuuna saxaabadii nebigu ma waxaad damcaysaan an yu'minuu lakum yuhuudda inay idin rumeeyaan oo diinkiina ay rumeeyaan oo qaataan, ma taasaa damac idinkaga jiro. walxaalna miyaad damcaysaan qad kaana ay ahaayeen fariiqun kooxdaasoo minhum yuhuudda ka mid ah yasmacuuna kuwa maqlo oo dhegeysta kalaamallaahi ilaahay hadalkiisii, uma markay dhegeystaan ay maqlaan ka gadaal yuxarifuunahu ay bedeli jireen, yuxarifuuna way bedelayeen hu kalaamkii allay bedeli jireen min bacdi maa marka ka gadaal ayayna bedeli jireen caqaluuhu kalaamkii ilaahay ay garteen inuu xaq yahay. walxaal ayayna bedeli jireen hum iyagoo yaclamuuna og ana ataxriifa yani kufrun wa dalaalun, bedelidda kitaabka ilaahay la bedelayey gaalnimo iyo baadi inay tahay iyagoo og ayayna bedelayeen. marka dadka noocaas ah miyaad rajo iyo aad ka qabtaan oo aad damcaysaan inay diintiina qaataan oo aad damcina waxba inkaaray qabaane kuwaan khayrlaabayaal waaye waxba islaamnimadu ha ku falina.
waidaa laquu ilahi wuxuu yidhi yuhuudda markay la kulmaan alladiina kuwa aamanuu alla iyo rasuul rumeeyeen saxaabada iyo dadkii muslimiinta ah markay la kulmaan qaaluu yuhuudda waxay leeyihiin aamanaa rasuulkaan rumaynay allaan rumaynay qiyaamahaan rumaynay waxay leeyihin sidaasay leeyihiin diinkaan rumaynay waidaa khalaa bacduhum yuhuudda gabalkood markay la gooni noqdaan oo ay la gaar noqdaan ilaa bacdin gabalka kale markay shirarka gaarka ay la qaadanayaan qaaluu waxay yidhahdaan yuhuuddii atuxadithuuna ma waxaad u sheegaysaan hum saxaabadii nebiga ma waxaad u sheegaysaan waa yaabe bimaa kii fataxa allaahu ilaahay uu furay calaykum adinku uu idiin furay oo min alcilmi ogaal ah min ana muxamadan xaqun nebi muxamed inuu xaq yahay aqoonta iyo ogaalka aad og tihiin ma arrinkaasaad u sheegaysaan waa yaabe liyuxaajuukum yacni haddaad u sheegtaan liyuxaajuukum inay idinla doodaan ayaa ka dhalanayso bihi maagaas aad u sheegteen cinda rabbikum rabbigiin agtiis inay idinkula doodaan ayaa ka dhalanaysa maalinkii qiyaamaha afalaa tacqiluuna weydnaan caqli layn marka lidaa laa tuxadithuuhum saa darteed marka ha u sheegina marka ha u sheeginina sababto haddaad u sheegtaan inuu nebigaa nebi xaq yahay kitaabka towraada lagu sheegay kitaabka injiila lagu sheegay hadduu nebigan aad sheegtaan tilmaamihiisi sax oo aad tiraahdaan waxaas ilaahay idin furo cilmiga haddaad u sheegtaan saxaabadan waxaa ka dhalanayso liyuxaajuukum waxaa ka dhalanayso bihi maagaas aad u sheegteen cinda rabbikum rabbigiin agtiisi inay idinkula doodaan liyuxaajuukum saxaabada inay idinla doodaana ka dhalanayso bihi maagaas aad u sheegteen cinda rabbikum rabbigiin agtiisi laamta laamul caaqiba la yirahda liyuxaajuukum hadhow waxaa ka dhalanayso ciribtii dambe aakhiri marka la tago inay yidhahdo kuwaan ilaahayu diinta waa soo gaartay kitaabkooda towraad iyo injiil way ogaayeen inuu ku yaalo weliba iyagaaba noo sheegay inuu towraad sidaas ugu yaalo injiil markay noo sheegeen kadib way inkirin ilaah kuwaan waxaa annagaa markhaati ka ah inay nebiga xaqnimadiisi ogaayeen midaasaa ka dhalanaysa ile markaa u sheegina tilmaama nebiga diladi weydiiye ma naqaana dhah ama waxaad tirahdaan tilmaantii naloo sheegay ninkan ma ah ilaahay wuxuu yidhi awalaa yaclamuuna yuhuudda iyo munaafiqiintaas miyaysan ogeyn ana allaha ilaahay yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxay qarsanayaan oo siraysanayaan habeenkii iyo wamaa yuclinuuna waxay muujinayaan inuu og yahay alla miyaysan ogeyn awalaa yaclamuuna gaaladaas yuhuuddaas munaafiqiinta miyaysan ogeyn ana allaha alle yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxay qarsanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxay muujinayaan wuxuu yidhi cabdullahi ibnu cabaas yani waa munaafiqiin yuhuudda munaafiqiin ka mid ah sababto waxay yirahn markay saxaabada nebiga la kulmaan sidaanay dhihi jireen markay gaari joogaana sidaanay dhihi jireen marka waa dad adi yuhuudda ka mid ah munaafiqiin sidaasay ahaayeena la yiri marka waa dad inkaar qabto sheekh sudin wuxuu yiri haulaai naasun min alyahuudi aamanuu uma naafaquu kuwaan waxay ahaayeen koox yuhuudda ka mid ah diintii rumeeyeen kadibna way munaafiqoobeen sidaasoo kale rabiic ibnu anas iyo qataada iyo rag fara badan oo salafkii iyo qalafkaba culammadii hore kuwii dambe kamid ahbo sidaasay u sheegeen marka sidaas waayo waana miduu ilaahay dhahay suuratu yani suuratu aali cimraan noogu imaan doontaaye waqaalat daa'ifatu min ahli kitaabi aaminuu biladii unzila cala aladiina aamanuu wajha annaar wakfuruu aakhirahu lacalahum yarjicuun koox yuhuudda kamid ah waxay yidhaahdeen ama ahlu kitaab kamid ah diintan yani nebiga dushiis lagu soo dejiyey rumeeya gelinka hore rumeeya gelinka dambena ku kufriya siay dadka kale ugu noqdaan yani waxaa samaysaan tashwiishi dadka ku fura gelinka hore maalinka gelinkiisa hore diinta rumeeyo tawxiidka ku dhawaaqa gelinka dambena ka baxa haddii laydin weydiyo waxaad tirahdaan annaga diintan khayr ma ahan sababto annaga khayran umalaynayn xaq doonaan ahayn nebiga waan rumaynay nebi ilaah allaan umalaynayna markaan rumaynay oo dhowr salaad aan la tukano salaada subax aan la tukano oo duurka la tukano casirka la tukanay waxaa noo soo baxday meesha inay baadil iyo barbagaando ay taalo diin iyo nebinimana aysan oolinaan ogaanay kitaabadeena hore wixii ku yaalay iyo ninkan maxamed wuxuu sameynaa labay kala yihiin saa darteed annaga waan ka baxnay diintiisa oo saxma arrintaasay raba inay dadka ku tashwiishiyaan markaas dadkii wax magaratada ay yidhaahdaan alla ilahi waa sax yuhuuddoo niman kitaab iyo hayse aqoon-yahano ah haddayba soo galeen diinta haddana ay ka baxeen tolow timir bay lafaa ku jirta waxay kaga baxeen waxbaa ka jiro diinta sax ma ah arrintaas darteed tashwiishkaasay sameeyeen allah fashila jala jalaaluhu
marka waa dad inkaar ku dhacday. marka dersiga halkaas inoo joogo. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed.